waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanu noqonayo daacad diinta islaamka laakiin aniga imadaan dooranayna Falastiin u hadlo miyaa ii dooratee waqtiga ma cuno laakiin fuuskiisaan cad waxaan si gaar ah ugu ducaynaynaa shacbiga reer Falastiin ee dhibka weyn haysto ee walaalaheena waxaan ilaahay uga baryayaa inuu badbaadiyo masjidkiisa xaramka masjid al-aqsa marka Israa'iil wayna aqoonsatay inaguna iyageenu aqoonsanay way dawlad Israa'iil markay aqoonsatay dalalka islaamku way naga soo horjeesteen dhamaantood waxay aqoonsiga Soomaaliland ma ogolin waxaan magacaabay safiir waxay safiirka ma ogolin waxaan furay safaarad waxay safaaradda ma ogolin waxay doonayaan talo bal idinku ka jawaaba waxaanu diidanahay oo xisbiga ka soo horjeeda in xafiiska Soomaaliland laga furo magaalada barakaysan madaxweyne Cabdiraxmaan iyo madaxda xisbigiisa iyo xukuumaddiisu shalayto waxay taageerayeen qadiyadda Qudus taagtay haddaanu hadalay oo mowqifkayaga cadaynayna inay gogol dhigaan ila xisbi qaran baanu nahay oo xisbiyada mucaaradka u yeedhaan oo uu hadal odaynimo la jeediyo war miiskay taladu taalaana taasina waa sax oo wixiina loogu soo jawaabay watii shacbiga Soomaaliland ka marqaatiga madaxweynihii talada dalkan kaaga horeeyay ee doorashada fiican qabtay ee sida wanaagsan u galbiyay ee odaynimada muujiyay wax kasta ay raggu way isla soo maraa yaa acmaashu waa khaatumada taariikh weyn buu Muuse bixilayay oo aan cidina ka tirtirkan doorashooyin aanu faragelin doorashooyin waaweyn oo isku lamaanu qabtay oo kala duwan isagoo aan faragelin isagoo halkaa ka fadhiya isagoo galbiye kursigii isagoo ku garab galay ma ahayn munaasib inaad madalaha warbaahinta u soo mariso ma ahayn xataa haddaad wax ka tabatay isaga iyo annagaba waxay odaygayagii baa te qaranka adaa u oday inaad noo yeedho oo te war maxaa gacmaha geeljiro hoos baa loo dhaqaa ma ahayn hadalkii aad soo qaaday golahan fadhiyey markuu yidhi hadal odaynimo leh oo dalkan inuu la jecel kaleeyay muujinaya buu ahaa beertaydii baan ka soo orday markii aan ictiraafka maqlay waa hadal gobonnimo leh oo wanaagsan inaad ku jeesto baqadda umuu soo ordin oo adiga ka baqayay ninku waa Muuse waxa weeye wuxuu yimi gobonnimo iyo xaq qarankani ku leeyahay ma ahayn ma mudnayn erayada aad u qoodhay ma ahayn